salaadaha faralka ah ama guud ahaanba salaaday waynu tukanaynaa une maxay u baahan tahay markaan intan akhriyo waxay garan doontaan cilmiga salaadu inuu badan yahay ay idinkana baahan tahay kutub laga akhriyo cajalada laga dhagaysto cilmi la sii weydiiyo si ay u ansaxdo arrimaha aynu sheegi doonno ilaa 7 qodob meelahaasa waxay u taagan yihiin qaybi waa faralkii kama kacdada ahaa haddii aad la iman weydo ay salaadu buraysa qaybina waa waxyaabaha jabinaya qaybina waa sunnayaasha adag qaybina waa sunnayaasha ka sii fududa ku xiga waa wixii uu nabigu wada sheegay calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu salluu kamaa ra'aytumuuni usalli dad iyo waxaa u tukataan sidaa aragteen aniga u tukanayo kale marka salaadu ma laha wax la iska jeclaysto iyo waxaad ku kordhinaysaa toona ma jira sidaa nabigu inoo sheegay waa hadigiisii iyo dariiqadiisii baynu raacaynaa salaada waxyaabaha waajibaadkeeda ugu horeeya waxa kow ka ah shuruudeeda shuruud bay leedahay shuruudaasi waa laba mid waxaa la yidhaha shuruud ulwujuub midna waxaa la yidhaha shuruud usixa shuruud ulwujuub waa qofka laga helo ayay ku waajibtaa waa laba keliya waa muslim mukallaf ah qofku waa inuu muslim iyo gaal kama ansaxayso mukallafna waa inuu yahayo waa murakabun min shay-ayni waa inuu miyir qabaa oo aanu waalayn waa inuu yahay qof qaangaadha hadduu sabiyay wuu tukan karaa kumaysay waajibin waxaynu u imanaynaa shuruuda marka ay salaadu ka ansaxayso la doonayo iyaduna waa 4 waqtigu waa inuu galaa siduu ilaahayba qur-aanka ku sheegay inna salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta qofku waa inuu qiblada qaabilaa siduu qur-aanka ilaahay ku sheegay subxaanahu wa tacaala xagga qiblada u jeedsadaa qofku waa inuu cawrada asturaa yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid qofku waa inuu daahir yahay salaadu haddaana daahir ahayn ma ansaxdo طahaaradaasaa markaa 2 shardi iyaduna isugu jirta inaad xadad ka daahirtay xadadku waa waxa diida cibaadada waa jinaabadii waa qofkii oo dhiiggii caadada leh waa qofkii oo bilaa weysaa waxyaabaha waa inuu nadiif ka yahay waxaa labaadu nadiif ka noqonaya waxaa loo yaqaano nijaasta qofka muslimkiina maxaa nijaasa waa inuu bartaa waxaynu islaamku nijaas u yaqaano waa inaad liiskeeda taqaana hadda kama hadlayno marka nijaas oo dhan waa inuu nadiif ka yahay jirhkiisa maradiisa iyo meesha uu ku tukanayo taasina waa mid kale markaa shuruudda 4 ah haddii dahaarada la kala saarana 5 noqonaysa iyo salaadu u baahanta waxaa timi tiirarkii salaadu ay ku taagnayd shuruud waa laga maarmaan haddii shardi lagaa waayana salaadu ma ansaxayso tiirarkan soo socdaynu tirinaynaana ee arkaanta loo yaqaanaana mid ka mida haddii la waayo salaadu way kaa buraysa waxa kow ka niyada inama alacmaalu binniyaat salaada markaad gelayso ma duhur baa ma casar baa ma maqrib baa dee iska tuka maaha laakiin salaadu waa inaad niyootaa usalli farda la akhriyayaana ma jiro waayo daliil baanay lahayn nebigu ma odhan inoomana sheegin sala allahu calayhi wasalam arkaanta waxaa ka mid ah inaad salaaddii isu taagto waquumuu lilaahi qaanitiin fadhiga kaagama ansaxayso adigoo sara jooggii karaya arkaanta waxaa ka mid a inaad faatixadii akhrido rasuulkaa ku sheegay sala allahu calayhi wasalam qofku inaanay salaadi u ansaxayn haddaanu faatixada akhriyin qur-aanka kale iyadu way ka duwanta arkaanta waxaa ka mid a rukuucda oo si wanaagsan oo isku siman inaad dee u rukuucdo waxaa ka mid a sara jooggan ka dambeeya rukuucda oo ictidaal baa la ydhaha waxaa ka mid a inaad sujuuddo si wanaagsan oo deganaanshala u sujuuddo sara joogga yar waxaan leeyahay fadhiga yara u dhexeeya labada sujuudood ayaa arkaanta isaguna ku jira oo waxaa la yidhaahdaa aljalsatu bayna sajdatayn waa fadhi yaroo labada sujuudoodbu isaguna u dhexeeya arkaanta waxaa ka mid a waxaa loo yaqaano adumaniina xasilooni digaag hadhuudh guranaya inaad u egaato maaha digaag hadhuudh guranaya dee deganaansho ma leh waa ama haan la lulayo oo ciir lagu lulayo qofku marka uu sujuudo
ama rukuuco ama ictidaalo waanu si fiican socodkiiyo soo socodkuu kala baxaa ninkii salaadiisa xumaynayay musii'u salaatihi la odhanayay waa halkuu nebigu ku qabsaday calayhi salaatu wasalaam arkaanta waxaa ka mida ataxiyaadka laftiisa ataxiyaadka hore maaha waa ka dambe ataxiyaadka dambe inaad u fadhiisato iyaduna ataxiyaadka inaad akhrido waxay ka mid tahay arkaanta in ataxiyaadka laftiisii isagana lala fadhiisto weeye oo haddaad isla taagto dadka qaar baa iyagoo yaro xawilaan isilaawa oo faatixadana fadhiga ku akhriya ataxiyaadkana sala jooga wax lala yaabo maaha markaad bakhaarka xisaabinayso ama problem maskaxda kaaga furan yahay goor dambe waxa laga yaaba dad labada dhinaca hareerahaagu inay kusoo eegaan markay ku maqlaan adiga oo tashahudka ama ataxiyaadka sala jooga ku akhriyaya waa tii islaam baa odaygeedii ataxiyaadka sala jooga ku akhriyo way garatay inuu sahwisan yahay markaa waxay tihi nahuunooyinoo talo maxaa lala fadhiisan doonaabay wixii fadhiga lagu akhriyi jiray waatana waa la isla taagaye waayo fadhigana maxaa lala tegi markaa si aan taasi kugu dhicin ataxiyaadku waa fadhigaa lagu akhriyaa nebi maxamed in lagu saliyana culimada in badan baa arkaanta ku daray ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala اnebiy yaa ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasallimuu tasliima kollayba waa waajib salligu ataxiyaadka dambuu waajibayaabaa culimada qayb ka midii ku tegeen arkaanta waxaa ka mida assalaamu calaykum waa ta hore altasliimatu اluulaa assalaamu calaykum inuu qofku idhaahdo arkaantay ka midta ta dambena waa sunne waxaa arkaanta afariyo tobnaada ugu dambeeya tartiibta waxa weye kala habayn inaad ka soo bilowdo halkii aynu sheegaynay allahu akbar iyo niyadii ee assalaamu calaykum tana geyso oo aanad dabarogin salaadii intaasoo dhan waxay ka mid yihiin waxyaabaha loo yaqaano arkaanta afariyo tobanka inaad qaybto wey afariyo tobanka waa inaad qaybto oo aad garan karto haddaad mid ka mida ka tagto dee in isagii oo lala yimaado ragcadda midhkaasi ka maqanyayna ragcaddaasi ma jirto marka waa inaad haddaanad taa kala garanaynin waxaad ku kabta iyo ragcadaad u kacda iyo waxaad sahwida iyo midna garan mayse waxaa iyaduna laga maarmaan ahoo qodobka saddexaada muhiimka ah waxyaabaha salaada buriya oo loo yaqaano mubdilaatu salaad waxaa ka mid a hadalka waquumuu lilaahi qaanitiin ay saakitiin rasuulkuna wuxu uhi ina hadihi salaa laa yasluxu fiiha shay min kalaami الnaas qofkood tukanaya inuu de iska hadhadlo hadalkii gaarka ahaa ee makhsuuska ahaa lagu tukanayay midaan ahayn way kaa jebinaysaa waa hadalka markaa ogaanta ah hadalka markaa sahwiga ama kaa dhaca ma burinayo cunitaankiibaa isaguna jebin karaa dhaqdhaqaaqiibaa jebinaya waa dhaqdhaqaaqii badnaa iyo cunitaanka salaada dhexdeeda wax cuntay iyo hadalkii aada hadashay culimada qaarna qosolkay kusii daraan waxa markaa jebinayoo kale shuruudihii aynu soo sheegnay haddii la waayo waxaa jebinaya arkaantii haddii la waayo shuruudihii shanta haddii la waayo salaadi ma jirto arkaantii haddii la waayona salaadi ma jirto intaa wuxuuna lagu darayaa hadalka iyo cunada iyo dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa aan dee caadiga ahayn cunna sidee u suuroobi kartaa dee adigoo saambusiiska afka kusii hayaad liqday ama kii jaadka cunaya taksiinsanaa ayaa markuu safkii galay buu iska liqliqay nacnici baad iska muudsatay way dhici kartaa waxaa intaa inoo weheliya salaada maxaa qurxinaya sunnayaashii weeye aad bay u fara badan yihin kuwooda sii adag sunnayaasha muakadka macnaha waxyaabaha mu-akadka ah ee qolyaha qaarkoodna waajibaadka ku tilmaamaan madaahibtu waxaa ka mida kuwan soo socda allahu akbarahan sii socodka iyo soo socodka gacmaha oo la ysdul saaro midigta iyo bidixda ducadan la akhriyaya ee ka dambaysa markaad salaada xidhato qur-aanka kariimka ah ee la akhriyayo ee ka dambeeya faatixada aamiinta aynu odhanayno marka aada sujuudsan tahay inaad tasbiixo akhrido tasbiixi inaad akhrido oo weliba aad ka kordhiso mid marka aada salaada ku jirto weeye aynu ka hadlaynaa dee dabcan sunno iyo faralba waaya waxaa jira sunnayaal iyaguna kuwaa soo raaca oo laga yaabo inay qolayaha qaarkood dee sunanimadeeduna la isla waafaqsanya qolyaha qaarkood aanay waajibaadkooda ku darin
waxaa ka mid a gacmahan kor loo qaadayo oo lala simayo dhagaha xadiid badanoo saxiixa ku soo aroortay allahu akbaraha la odhanayo subxaana allahi walxamdu lilaahi ataxiyaadka hore kuwa waajibaadkana way ku dareen qaarkood waxaa ka mid a in fara badanoo waynu iska soo koobkoobaynaaye waa sunnayaasha allahu akbar markaad sii socotiyo markaad soo socoto samica allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamd markanaad ku jirto fadhigan udhexeeya labada sujood ducadaad akhriyayso rabbi kfir li warxamnii wajburnii warsuqnii ataxiyaadkii hore wahaluma jar waxaa ka mid a waxyaabo karaahiye ah aynu salaada ka ilaalinayno karaahiyadaasi ma burinayso laakiin ajriga yaraynaysa waxaa ka mid a ijtimaalu samaa qofku inuu go keliya isku wada duuduubo oo isagoo qaawan buu go keliya saa u hilaabanaya markaa samica allaahu markuu idhaahdo cawradii baa bannaanaanaysa wuu diiday nebigu calayhi salaatu wasalaam talaum waa afduubashada qofkiiba afka duubanaya sax ma aha timaha dheereed leedahay iyo maryahaagu markay sidaa u laalaadsamaan inaad iyagana dib u celceliso sidan carabka cumaamada leh had iyo jeer saasun maanta oo dhan u celcelinayo sax ma aha ama markaad taagan tahay ood gaalada isu egeysiiso inuu qofka keliyaha qabsado isagoo salaaddii ku jira adaab baa la doonaya sidanaa la odhanayay taasina waxay ka mid tahay waxyaabaha karaahiyada ah waxaa ka mid a inaad ataxiyaadka inaad markaad salaada ku jirto xayawaanka u egaato oo sidaad ugu egaan kartaa waxa weeyaan inaad ilaa suxullada gacmaha dhulka dhigto siduu aygu cagihiisa usoo dhigo oo kale ama aada usoo kambarhuurhsato sida daayeerku usoo fadhiisto oo kale daayeerku markuu wax cunayo labada cagood intuu salka dhigo ayuu labada cagood sidaa usoo fadhiistaa iqacaa wax la idhaahdo marka salkii iyo cagii baad dhulka wada dhigaysaa sidaasaad usoo fadhiisato xayawaankaad u egaanaysaa taasina waa karaaha waxaa karaahadii ka mid a dhaqdhaqaaqa kooban ee aan ila kii badnaa salaadu burinaye dhaqdhaqaaqa yar oo iltifaadka eegmadaad hareeraha yare eegaysa ilqoodha sidaa biduuni xaaja wax muraadina iyadoonu jirin hadduu muraad jiro oo arrin kale ah caaisha nebiga weydiiso wuxuu nebigu ku uhi waa xaditaan salaada qofka uu shaydaanku ka xadayo karaahiyada waxaa ka mida inaad isku dhajiso jilbaha iyo bogga ama laabtaada iyo jilbaha oo waxaa la doonaya qofku markuu sujuudsan yahay inuu sidaa isu sii kala daayo oo taxaamul sameeyo sidaasaa caafimaadkiisana u fiican oo inuu maskaxda madaxa si fiican u dhigo u qabadsiiyo sujuudda gacmahana hore u sii daayo ayaa fiican oo sujuuddu sunnaheedu yahay laakiin hadduu sidaa isu gaabiyo qof oo halkan bogga iyo jilbaha ama caloosha iyo jilbaha isku qabto taasina waa waxyaabaha karaahiyada ay ka mid tahay markaas dhowr iyo tobankaa shay sunnayaashii weeye ilaa 8daa shayna waxyaabaha la karaahiyeystay weeye arkaantu waa intaas shuruuduna waa intaa waxyaabaha burinayaana waa intaa mid walba dee kolka laydhaha la isdul taago oo daliiladeeda ha la raaco wakhti dheer iyo muxaadaraad bay qaadanaysaa wuxuunaan uga jeedaa uun inaad dhagaha ku qaadataan wixii aad sii diraasayn lahaydeen faralkiisa iyo sunnihiisaba allah inagu anfaco soomkiiyo salaadana allah inaga aqbalo cilmiga iyo cibaadadana allah inoo sakhiro